السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan. Fiidiyowga hore waxaa bartanka ugu jirnaa qaybta intermediate-ka oo dhexe. Hal fiideo oo kasoo duubnay fiidiyowga kaleeto oo labaad waa kan. Fiidiyowga labaad wuxuu ku saabsan yahay marka candlestick uu ku saabsan yahay. Waa maxay candlestick? Sidoo kaleeto hataa forex lee noqotid oo forex trader noqotid waxa uu hil kula noqonayo ama 90 indhahaada ka muuqanayo 90 waa candlestick. Marka maanta waxaa ka hadli doonaa qaabka loo isticmaalo candlestick wuxuu yahay, qaabka loo isticmaalo, sida uu samaysmayo, wuxuu yahay, qaabka loo akhriyo. Marka qaybta ugu horeysa waxay ka sheekeynaysaa brief history ka sheekeynaysaa oo history yar oo ku saabsan candlestick ku saabsan. Ay ka sheekeynaysaa maxaa la marka qaybta ugu horeysa asiga market timing waaye. Market timing maxaa laga wadaa? Yacni candle walbo waqti uu taagan yahay. Marketka marka wuxuu ku socon lahaa ama timeka ku socon lahaa ama waqtiga ku socon lahaa candlekaas uu taagan yahay macnaha. Kana iska bedela sorry qadka xoogaa culus. Marka market timingka uu taagan yahay candle walbo. Sidoo kale jaadkana asiga waa lagu bartaa. Sorry. Okay. maxaa sheegnay marka jaadkina asigana oo sheegayo yacni waa ku kii doonaa oo trading view-ga sida maalin hore aad ka soo hadalnay qaabka oo kaaga muuqato kaleeto trading view-ga waa isla tegi doonaa. Waxaa ka sheekay doonaa marka jaadka noocuu yahay, qaabka uu samaysmayo, siduu kale yahay, kor sida uu aadayo, waxyaabahaasaa ka wada sheekay doonaa insha allah. Sidoo kale behavior finance wuxuu ka sheekeynayaa asiga behavior finance yacni qaab dabiiciga ama dhaqamada oo yeelanayo finansigaas. Quantitative analysis aa lagu sameeyaa. Sidoo kale quantitative analysis haddaa maqasho maxaa markaas wax oo operational la xiriiro ama tirooyin la xiriiro. Sidoo kale methodology dates haddaa dib loogu laabto asiga yacni taariikhdiisa maxaa waaye 1600 la isticmaalaya originaliga waxaa la isticmaalayay ama isticmaali jiray nin Japanese rice farmers yacni wuxuu beeraley ahaa bariiska iyo waxaas usoo bixi jiray. Marka qaabka uu isticmaali jiray maxaa waaye wuxuu ku saadaali jiray yacni crop priceska qiimaha oo bariiskaas oo kaleeto uu ku saadaali jiray. Ninkaasaa markii ugu horeysa uu isticmaali jiray. Laakiin markii dambe xilliyadii dambe oo 18 oo kaleeto 18 century qarnigii 18 meelahaas ninka oo isha Homer la dhahayo ama maxaa u isticmaali jiray wuxuu isku dayay inuu suuqa caadiga oo trader oo ahaa asiga horta. Marka wuxuu isticmaalay suuqa maadaama real karaystay yacni market inuu la xiriiro emotions oo qofka. Hadda ma fahmi karti emotionkii waxyaabahaas hadaa lagaga sheekeeyo laakiin hadhowdi xoogaa markaa experience u lahaatay oo wax badan ku jirta si fiican aa u kala doontaa. Sidoo kale introduction to the west marka waxaa loo waxaa ahaa kadib lasii baray ama loo soo bandhigay galbeedka oo kaleeto 1990 meelahaas by Stephen Nyson ninkan la dhahay dhanka oo reer galbeedka waxyaabahaas usoo gudbiyey. asiga muxuu ahaa expert candlestick analyst khabiir oo ku ah macnaha candlestick. Marka meesha waxaa kusoo qoray qaabka candlestick oo u samaysmo structurekiisa ama يعني muuqaalkiisa guud sida uu yahay
meesha waxaa laba candle u kala qaaday. Candle waa buy candle, candle no waa sell candle. So buy candle-ka qaabkan u samaysmaa oo kalarada horta muhiim ma ahan. Kalarka oo candle-ka buy-ga waa cagaar, kana waa gaduud, laakiin muhiim ma ahan. Waxaad ka dhigi kartaa meesha adeeg ku xirantaa, laakiin candle-ka kor aadayo buy waxaa laga wadaa it means candle-ka kor uu aadaya oo kor u soconaya. Sell waxaa laga wadaa hoos u soconaya. يعني باين إن شاء الله لا يسوي شرحنا أو قيمها ولا إيبسنا يا قيمها مركو هوس أسنا يا أما كان الكان يحي ولا سكي كذا يا مكرد مركا قاب كان أصلا اسمه قابتان دحي أو إلا إنتان وحال لها أنك المسوقاتو قابتان دحي أو إلا إنتان بادي الله sida magaca kaaga muuqdo baadi allaha qaybtan kale oo dheerka labadan qaybood oo yirista oo ulashana waxaa lahaa weeks allaha candle weeks waa kan amigi magacaan uu leeyahay. sidoo kaleeto candleka meeshaan ku furmaa, intuu ku furmaa open allaha meesha ku furmaa, meesha ugu hooseysa uu gaarayo candlekani waa low allaha, meesha ugu sareysa uu gaarayna waa candleka waa high allaha. labadan fiiqtimood waaye oo ugu hooseysa iyo ugu koreysa. meesha ugu hooseysa maxaa lahaa low, meesha ugu koreysana maxaa lahaa high. candlekana meeshaan ku xirmaa, halkaas ku xirmaa. marka candleka markuu furmo inta ka furmo hoos u soo aadaya. hoos markuu soo aadayo means maxaa waa qaybtan oo baadiga waa candleka awoodda siduu u leeyahay waa يعني it means maxaa waaye suuqaas awooduu ka lahay lacag badan maa ku jirtay. kan wuxuu tilmaamaa hadda lacag badan inay ku jirtay. sidoo kale meeshaan inaa dad laga soo xukuranaado oo dad bay suuq u gelayay inaa hoos loo soo naqo oo meeshaan suuq ku xirmay. sidoo kale meeshaan seel dad oo seel u soo galay inaa bayar badan oo dad badan wax iibsanaya ina soo galeen suuqa sii eryadeen. markay sii eryadeen baadigay keeneen kadib markaan seel oo ahaa oo gaduud u ahaa. kadib markay inta keeneen oo inta sii dhaafay bayaska awood yeeshay oo dadka oo soo galay oo wax iibsanayo awooddiis sidii kusii dhaqaajiyeen ilaa meeshaan ugu sarreysay geeyeen. dad kaleetoo sellers ahaa imaadeen hoose u soo galeen, laakiin markay inta keeneen waa ka awooddooda meeshaasi ku ekaatay. ka dhalkan waqtigiisa meeshaasi ku dhamaaday. so marka waxaa sheegnay baraaska qiimaha inta ishabaal waxaa ahaa baadiga wuxuu tilmaamayaa dadka inay meeshaas ku badan yihiin, yacni dad badan ku jira oo dad badan meesha soo galeen oo wax ka gadanayaan. qiimaha baadiga markuu saan u weyn yahay dad badanaa wax soo gateen ma soo gadanay dad badanaa wax iska gadayay. yacni qaybtan hoosena wuxuu sheegayaa inay tabarta ku yartahay oo awoodda ku yartahay oo dadku waxsan tahay. meeshaan muxuu sheegayaa candleka meeshuu ka furmo waaye. meeshaan maxaa waaye candleka meeshuu ka xirmay waa intuu ka xirmay, halkaasuu ka xirmay. kanne intuu ka furmay meeshaan low ugu hooseeyo gaari kara, meeshaan low ugu sareeyo. sidoo kale qaybta kaleeto ku xigtana maxaa waa isku mid oo laakiin waxay ku kala duwan yihiin. kan maadaama asiga inta waa la iska gedaya soo maha, maadaama la iska gedaya koraa loo raacaya. maadaama kor loo raacaday hoosaa laga soo gelaya soo maha. hoos marka laga soo galo baay waa ka dhalkaan. hoos marka laga soo galo koraa loo sii wadayaa. wuxuu ku xirmayaa marka koruu ku xirmayaa, wuxuuna ka furmayaa hoos. kan maadaama la iska gedayo oo suuqa la iska gedayo asiga muxuu ka furmaa hoosuu ka furmaa. wuxuu ku xirmaa laakiin koroo ka furmaa dhehe wuxuu ku xirmaa laakiin hoosuu ku xirmayaa. waa isku midna qaybtana baadi ka waaye oo baadiya lesla lahaa oo suuqa wuxuu sheegayaa asiga qaybtan hoose inuu suuqa hoos awood xoogan inuu hoos uu sacayo. qaybta ugu hooseysana waa isku mid mar walba misbedelayso lowga iyo hayga
highgan waa qaybta ugu sareysa oo gaaray suuqa waa kana meeshan waaye meesha ugu hooseysa oo gaarana maxaa waaye meeshan waaye lowga waaye labadan qayboodne labadan uloodne yacni inuu suuqa awood ku lahayn sheegaya waxaa la lahaa weeks aa la magacoodana waa kana marka qaabka u samaysan yahay waa candleka noocaas u samaysan yahay noocaas u samaysan yahay kan kaloo noogu xigo maxaa waaye marka kan kaleeto noogu xigo waxaa ku sharaxaa candle stiga time framku yahay siduu u samaysan yahay time framku ka samaysan yahay inbii sawirka uu soo bixi layahay qadka maaculus I don't know waa kana waa noo soo baxay asi maxaa meesha waxaa ku qoran marka every candle walbo stands for a specific time frame wuu taagan yahay calaa halkii candle oo aragtid wuxuu u taagan yahay specific candle wuxuu taagan yahay specific time hadda kan oo kaleeto 4 hour waaye 4 hourkan marka gudaha loo sii galo waa la sii jijibinaa oo wuxuu noqonayaa candlekan 1 2 3 4 afartaas candle loo kala noqonaya oo mid walbaba 1 hour mar walba time frameka candleka time frameka ka weyn yahay si practical kuu tusi doona oo meesha kuu tusi doona mar walba oo time frameka ka weyn yahay waqtiga ka weyn yahay hadda waqtiga kan 1 hourkan iyo 4 hourka yaa weyn yaa yar 1 hourka yar soo maaha 4 hourka weyn mar walba oo candleka 4 hourka ka weyn yahay waa mar walba oo candleka ama mar walba oo candleka ka weyn yahay waqtiga time framekaas ka weyn yahay waa mar walba oo candleka kasii weyn yahay asigana oo hadda 4 hour maadaama candlekan yahay haddii lasii jijibiyo 1 hour 1 hour 1 hour afar oo noqonaya soo maaha maadaama 4 hourkan ku jiro 4 saac oo kala duwan ku kala jiro afarka candle loo kala noqonaya kan kaleetana sidiisoo kaleeto waaye waa seelka waaye asigana 4 hour hadduu yahay maxaa kasii dhex abuurmayo 4 candle kaleeto oo mid walbaba u taagan yahay 1 saac u taagan yahay 4 saac kan hadduu ahay wuxuu dhalayaa ama waalid u noqonayaa 4 saac kale oo min candle walba 1 saac u taagan yahay idaa ku wareertay laakiin maxaa ku geenayaa jaadka ku geenayaa jaadka ku geenaa soo bax inta imaaw meesha ku sharaxaya waaye hadda maxaa joogaa euro USD aa joogaa 1 day aa keenaa lacagta jooga intee ku karane halkaana ka garanaysaa euro USD waaye marka candlekane haddaay maxaa kugu sharaxay candleka inuu guduud ahay iyo inuu ahay gaduud inuu ahaa iyo inuu cagaarkan ahaa gaduudkan hadda waxaa rabtaa ka dhigi kartaa gaduudkan madowga ka dhigtay candlekan oo madowgana wuxuu u sheegayaa seelo u sheegaa marka candlekan halkan specific candlekan maxaa samayn doonaa kan inta keensado specific candlekan oo madowga
candleka waa ujeedaa soo maahan candlekan 1 day waaye ama calaa candle walbo hal maalina u taagan yahay candlekan hal maalina u taagan yahay candleka maalintii maxaa waaye oo khamiisa kan jimcihi waaye sidoo kaleeto jimcaha sibti iyo axad ma furno oo dadkaas gaalada iyo weekendi u tahay annaka siday khamiisii jimco noogu tahay maalmo fasaxa ayaga gaalada waddankaas markaa tagto maxaa waaye khamiisii jimcahooda maxaa u waaye sibti iyo axad waaye candleka kaleeto ku xiga waa monday oo waa isniin waa talaado waa arbaco waa khamiis waa jimcihii horo marka candlekan oo khamiis cafi isla fiiriyana waa kana kowaabinaa noo gelshay maxaana keenaa 4 houraana keenin 4 hour haddiina keeno halkii candle oo kala jajabay oo wuxuu noqday tan waxaa noo keentaa four hourka wuu u kala jajabay muxuu noqday 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 oo noqday 11 hataa ku dhufatana maxaa 24 saac waaye 24 saac oo maalintaas oo kaliya muxuu ahaa candleka hadaaya muxuu ahaa marka seel oo ahaa seelkaas maxaa ku jiri kara marka buy iyo sell ku jiri kara labadaba waa ku dhex jiri karaa 4 hour waaye hadda 4 hourka marka candleka sidoo qaabku usoo samaysmayey hadaa waa ku sharaxa hadaa dhaho qaabku u samaysmayey hadaa waa ku sharaxa dhaho waa kana oo intoo ka furnay meeshaana ka furnay meeshaasa maxaa u open meeshaana maxaa u hayga ugu dheer oo gaari waaye hayga ugu dheer oo gaari lowgiisana maxaa waaye lowgiisa ugu dheerna oo gaarina maxaa waaye intana maxaa waaye baadhigiisa waaye labadan xabana maxaa waaye week al lahaa oo haddaa sidaa kugu soo sharaxay week al lahaa videoga xoogaa inuu dheeraada laga yaabaa sorry xoogaa wax badan inaad ka fahanto waaye marka candlekan qaybtiisa maxaa lahaa qaybtan weyntaa baadhi waaye qaybtan ugu hooseysa low waaye qaybtan ugu sareysana maxaa waaye high waaye meesha ugu sareysa oo gaari karo meeshan kaleetana week aa lahaa kana openka waaye meeshaana kalowska ka hilmaamay haddana qoraa meeshaan uu ku xirmaa maadaama uu seel yahay seelka koroo ka furmaa hoosna uu ka xirmaa baygana hoosoo ka furmaa koroo ka xirmaa marka 4 hour aa geysanaynaa ama 8 hour noo shaqeeya barabeyno no 8 hour noo shaqeeya no shaqeeya 4 hour ka geyna 4 hourkaas maxaa marka waa kana asoo kala saaray kana waa kana hadda saas ma ahaynin wiilka meesha ugu sareysa uu gaari karo waa kana hayga meesha ugu sareysa oo dhahna waa kana muxuu ahaay wiigoo ahaay laakiin wiilkiisii kan isku wada mid maahan meesha suuqa ka furmano faatana openka closeskana intuu ku xirmay meeshaanu ku xirmay intuu ku xirmay maalintii meeqaa ku jirta marka
meeqoo ka samaysan yahay kow candle waa kow waa labo waa saddex waa afar waa shan waa lix horarkan ugu horeeya yacni wuxuu soo bilaabmaa markii 6 saac ku dhacdo ama 6 saac ku dhacdo 6 saac ilaa candlekaas wuxuu jirayaa adi ilaa 4 habeenimo ama 10 saac oo habeenimo 10 saac candlekana furmay ilaa muxuu socday ilaa 2 saac 2 saac kana furmay ilaa wuxuu socday 6 saac 6 saac kana furmay ilaa muxuu socday 10 saac 10 saac kana furmay oo ilaa muxuu socday 2 saac oo habeenimo 2 saac kana furmay ilaa muxuu socday 6 saac habeen kale meeqa candle ku kooban yahay marka waa kow waa labo waa saddex waa afar waa shan waa lix waa 7 candle xitaa kan xataa markaan furmo laakiin 7 ma la dhihi karo kow labo saddex afar shan 6 candle waa 6 haddii lagu dhiftane min afar waa 24 saac oo aad u soconaya ka candle walboodna 4 hour kaane 4 hour kaane asiga hadday sidaa soo sheegnay mid walba wuxuu ka samaysan yahay 4 candle kaleeto oo 1 hour kaleeto 1 hour kaleetona muxuu kasii samaysan yahay 4 kaleeto oo 15 minutes marka time frame-ka haddaa kuu sheego time frame-ka waa kana time frame-yada waqtiga meeshaan ku taagayaan 1 minute 1 candle waaye 1 minute walbo 1 minute haddaa kiisa calaa halka candle 1 minute aa kiyaa fiiriyaa 1 minute walbo wuxuu u taagan yahay candle walbo 1 minute aa u taagan yahay sidoo kaleeto 3 minute 3 minute candle walbo 3 minute time frame haddaa kiyo candle walbo wuxuu u taagan yahay 3 daqiiqo sidoo kaleeto 3 minute haddaa ka soo tago meesha 5 minute aan ugu qorno 5 minute haddaa kiyo candle walbo wuxuu soconaa laga wadaa ama buy ha ahaado ama sell ha ahaado candle walbo wuxuu soconaa laga wadaa 5 daqiiqo oo soconaa 15 minute haddaa kiyo wuu kasii weynaaha candle walbo wuxuu soconaa 15 daqiiqo soconaa calaa kan walba buy ha ahaado ama sell ha ahaado sidoo kaleeto 30 minute haddaa kiyo 30 minute haddaa kiyo candle walba wuxuu soconaa 30 daqiiqo kan 30 daqiiqo soconaa kan 30 daqiiqo soconaa isku geeya 1 saac sii noqonaa kan 30 daqiiqo kan 30 daqiiqo 2 saac sii noqonaa kan 30 daqiiqo 3 saac sii noqonaa 4 hour candle haddaa kiisina intaan dhamaa muu hal candle kaaga dhigaa 4 hour haddaa kiisid laakiin kan waa 30 daqiiqo kan waa 30 daqiiqo kan waa 30 daqiiqo labadan isku dar marka 1 saac labadan isku dar 2 saac kan iyo kan isku dar 3 saac kan iyo kan isku dar 4 saac intaan wuxuu kaaga dhigaa haddaa 4 hour kiiso intaas wuxuu kaaga dhigayaa 4 hour haddaa kiiso hal candle oo kaaga dhigaa waa ujeedaa somaa halkan candle oo kaaga dhigay 4 saac marka candle walba wuxuu taagan yahay candle walba wuxuu taagan yahay saacad walba uu gooni yahay haddaa time frame-kaas haddaa kiisa time frame-kaa joogta 1 hour haddaa joogto 1 hour candle walba wuxuu taagan yahay 1 saac haddaa 30 daqiiqo haddaa kiisa candle walba wuxuu taagan yahay 30 daqiiqo marka price-kaasna insha Allah haddaa xoogaa ku wareertane isku day inaad ku ceshito oo videogan 2 mar ama 3 mar intaa ka fahmayso ku ceshato andin kadib inaa meelo kaleeto oo youtube-ka oo kaleeto soomaali badan oo ka wada hadashana waa jirta oo asigna ka baartid meeshaana noogu eegaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa inoo videoga xigo
iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.